dhawaan ayay ahayd markii dawladda Jabuuti ay gebi ahaanba ka diga rogotay heshiiskii hore u dhexmaray iyaga iyo shirkadda DP World. maareeyaha guud ee dekedaha iyo goobaha ka caagan cashuuraha ee dalka Jabuuti Abubakar Cumar Xadi ayaa hore u sheegay qodobo dhowr ah oo xudun u ahaa khilaafka iyaga iyo DP World. gudoomiyuhu waxyaabaha uu tibaaxay waxa ka mid ahaa in la isku haystay markii ay DP World diiday in Jabuuti ay dekedo ka dhisto wadankeeda isla markaana ay iyadu dekedo ka yeegleeshay wadamada gacanka Carabta. arrinta lafteeda ayaa waxay sas ka abuurtay dhinaca Somaliland waxaana ka hadlay rag siyaasiyiin ah oo ka mid yahay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee u cid Engineer Faisal Ali Waraabe. bal haddaba gudoomiyahan mar kale ku noqdo oo weydiiyo arrintaasi ujeedada aad ka lahayd sida loo qaatay haday wax ka duwan yihiin iyo bal sida ay kula tahayba. DP World heshiis ay dawladda Jabuuti wala galeen markuu sanadku ahaa 2007 oo lagu horumarinayo dekada containerka ee Dorale. maareeyuhu waxa kale oo uu sheegay in khilaafka DP World iyo Jabuuti uu bilaabmay waqti aanu jirin xidhiidh ka dhaxeeya Somaliland iyo DP World. isagoo arrintaas ka hadlayana waxa uu yiri khilaafkuna wuxuu yimiday markaan joognay sanadkii 2012 oo ay bilaabeen inay dekado ka qaataan badda cas oo ay ka mid tahay Jeddah ay ka mid tahay Sokhna dekada Egypt oo ku taalo badda cas ku taalo iyadna Adan ayaa ka mid ahayd. marka waxa weeyaan anagu dal gaara ma ahayn waxaan ka hadalay Somaliland ma hadal qaadin Berberna ma hadal qaadin waxaan taabanay in halkaasi ay jirto conflict of interest DP World oo dekadii Jabuutina nala leh gacmihi lugahan laga xidho le waxba ma horumar kama sameyn kartaan dekado cusub ma dhisi kartaan iyadiina ku mashquulsan badda cas dekadaha ku yaalo dhan inay gacanta ku wala dhigtay qaadato ayaan lahayn taasi waxaan naqabata maaha waxaan qabalayna maaha saasan hadalka u dhigay laakiin ninkani ina Ali Waraabe waa nasiib daro inuu dawladda Jabuuti aflagadeeyo ummadda Jabuuti aflagadeeyo nagama xigo dadka Somaliland dad walaalaan nahay Somaliland nooma sheegan karo wuxuu ku jira dadka tirada yar oo u haysta reeraha dega bartanka reeraha cirifka inay ka Somaliland dirsan yihiin. marka waxa weeyaan anaga ka jecel Somaliland handuu isagu Berbera u jecel yahay handuu Somaliland jecel yahay inuu ku farxay inaan u soo erinay DP World handuu DP World haysto inay jannadii tahay ha qaato madaxa saarto meeshu doonana la maro si waxa weeyaan ninkaasi sidoo arinta u dhigay nin Somaliland u hadleeba muuhayn marka hadalkiisii aad dib u dhageysatid wuxuu ka hadlayay in Jabuuti ay heshiiskii jabisay heshiiskii bartanka socda maxaa ka khusaya in aan bila mishaar ahayn reer Jabuuti intina DP World ayman. marka ninkaas waxa ku cad halka inuu ku jiro proxy war wala kireystay. marka African weligeed dad noocaas loo soo kireysan jiray wala iska wala yaqaana. haddii shirkadda DP World ay la wareegto dekada Berbera idinka ma dhibaataydu ku haysaa? haddii DP World qaadato dekada Berbera wax dhiba ay noo keenaysa ma jirto. waxaan markastaba aan ilaahnaa geeska Afrika dalalka ku yaala oo aan badda haysan populationka ku nool ummadda ku nool 300 milyan bay kor u dhaafsan tahay. marka waxay u baahan yihiin dadka reer dekadaha maxay dalalkaasi aanan badda lahayn dekada ay ka bay mushtaraan u baahan yihiin. marka anagu horena u soo sheegnay conflict of mataqaana interest baan jiraan leenahay DP World waxaan imika la isku hayana waxa weeyaan transshipment cargo wax la yiraahdo container ku yimaada maraakiib waaweyn oo maraakiib yar dib u qaybiso maaha waxa ku socda qaarada anagu bororkan la tartamayno badankoodu waxay ku yaalaan dhinaca Arabic Peninsula ay ku yaalaan. ummadda Somaliland iyo ummadda Jabuuti waa dad isku diiga waa dad isku dhaqan waa dad walaalo ah wax alla wixii wanaag iyo horumar soo ay gaadho Somaliland anagu waxaan aaminsanahay oo haysanaa wanaag iyo horumar ay Jabuuti gaadhay
wixii dhibaato ku timaadana anagana wayna taabanaysaa. علي أحمد رابع علي سيو صاب تي في جيبوتي. gudoomiye waxaa jirtay hadal ka soo yeedhay maamulaha dekedaha dalka Djibouti inuu kugu eedeeyay dawladda Imaaraadka lacag ka soo qaadatay taana difaacaysa arrintan maxaad ka leedahay? bismillaahir rahmaanir rahiim wariyada hadii lacag ka soo qaato oo iga muuqan lahayd anigu waa nasiib daro dee magaranaysaa nin dalkiisii daafacaya oo xuquuqdii dadkiisa ilaalinaya inuu ninkan ku yiraahdo magaranaysaa lacag u qaatay de waan ka filiyay waa wadan kale ma ogtiisna dantiisu wadankiisu ilaalinaya laakiin waxaan u arkaa inay tahay magaranaysaa dee propaganda cheap oo aad u jilicsan bay la tahay ninkaas odayga ah isma naqaano in fact magaciisa samsi xaamid buu ahaa bay la tahay sharita laga soo diray haddii magaranaysaa xaq loo eegana eedaas aan soo jeediyay see isku soo jiiday afkiisu ahaa ninkiisu ahaa isagaa hadlay oo yiri BDP loo meelo baan isku haysanaa buu yiri mid waxa weeye wixii dekedaha samaysanina bayna tiri midna waxa weeye badda casbi ka samaysay dekedo nala tartamay taa uu leeyahay ha samaysanina yiraahdeen da way samaysteen afar dekedood ay samaysteen marka arrintaas murakama taagna way samaysteen marka tadfaalid ka taan waxa weeye taa ah badda cas ay ka sameeyeen marka isaga kelmadda yiri tii uma inuu ma fiicna wadan kasta xaq uu leeyahay inuu magaranaysaa waddankiisa horumariyo wadan kale ka xun ilaa qarannimada wax yeelaysaa waa been waxaan ahayd in fact inuu wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland waxay ahayd nidaamku inuu u yeero wakiilka Djibouti halkan jooga next ay u yeedhay wayna ninka wixii ka soo yeedhay de waanu kuma raalinahay noo micneeya ayay ahayd arrin dawladda lana waxaan nin qaranka aniga Ismaaciil Cumar Gelida waan simanoo isla madaxweyne wala doortaana waan ordo waan waayune warsin taana xilba iga saaran magaan wadan jawaab ka sameeyay inuu aflagaadeeyo meen waxa kale isna aflagaadeynaya wakiilka magaranaysa Soomaaliland u fadhiya Djibouti oo isna ugu sheegay baarlamaanka dhaameel toona nasiib darasana haysato maalintan uu ka hadlina kiilka shanaad wadiga arkay wixii cuqaalaysa hadii sheeganayo aniga aflagaadeynay marka dadkeena waxay noqoteen dad la isticmaalayo dadka horansiya dantooda danta qaranka qofkii dan qaranka waa la caayaya haddana madaxweyne warqad baan qoray hadda saxiixa aan leeyahay wakiilkaaga Djibouti de haddaad ku raacsantahay inuu wadankii aan daafacno wakiilka ahaa anaga aflagaadiyo iyo in kale noo soo sheeg warqad baan waxda qoray Cabdi Fataax wakiilka oo ka hadlay anaga iyo Djiboutina iyo Faysal waraabana anagu heshiis baan galnay Djibouti 2013 inaynu soo Djibouti Soomaaliland ay xiriirwan shalay yeeshato anna aan Djibouti ka daayo criticism-keeda iyaga ma waan weydiinaa inay heshiiska jabay in kale ya waan kala hadlay aniga nin soo fariisto ila birqaata tahay أنا دهنا إسماعيل عايم ما أنا إسماعيل يسألوا جواب ما هي أنا جوابتي ومدحوينه أيام نسكون هيرنا هاي ما كانوا مدحوينها واحترام بنا هي أنا بري كوين كورس كلاه يدي مرة أفرادنا الشرح صار ما الصومالي وسميسيد شركة خاطمان كو قامنا وكم هالسنة هاي هذا ندور ناحية تاينا شركة الصومالي كو قامنا صارت أنا واحترامنا لكن أريم ساسك كأبورات